السلام عليكم. عليكم السلام. أدر عبد الشاح مياتاي. ninkii dhalay gabadhii yarad ee tuli guulaad ku dhimatay baa tahay soo maaha sidee wax u dhaceen adeer adiga mucjise kala bahay oo yar way ka dhacday waan gaasay marka dee wax dawladu horay u soo dirmatay ma inay jiro waan garsay marka way badbaadin lahayd 3 maalmood markay halkii maaragtay ay ku jirtay wixii ka dambeeyay bay yimaadeen laakiin adeero 3 cisho kadib bay ku yimaadeen maanta video 3 maalmood kolkay ku jirtay dharaartii afraad ayay ku yimaadeen ayay gobol ku yimid gobol gobolka ku yimid 3 cisho kadib 3 cisho kadib way gobol ku yimaadeen magara imise ku sii jirtay marka gabadhuna meesha marka ay ku yimaadeen 3 bay ku sii jirtay 3 habeen iyo 3 maalmood ku sii jirtay meesha markii 3 cisho ay ku sii jirtay bay dawladdu ku timid iyo gobol ku yimid marka laakiin adeero maanta video baad soo duubtay aad leedahay dawladdu way soo gurmatay iyo dadka oo dhani imikana sidan aad leedahay marka sidee wax yihiin bal isqabadsii waxaan ku yidhi anigu iyagana waan u sheegay ma garanaysaa maxaad u sheegtay iyaga adeero waxaan u sheegay 3 maalmood markay ku jirtay gabadhaydu dharaartii afraad bay yimaadeen baan ku yidhi ma garan waan garsay markaa dharaartaas ay birmadeen baan ku yidhi dharaartaa markaa miyay kuu birmadeen dharaartaas ay birmadeen ee keenay jiitaydii maaragtay wax duminaysay iyo waxaan oo haddana way jari waayeen waan garsay kolka cishadii shanaadna way ku jirtay cishadii 6aad baa layga soo bixiyay intaa way yani way badbaadin kari lahaayeen kolka hore hadday 3 maalmood horteed hadday yimaadeen way badbaadin kari lahaayeen laakiin intii ka horreysay oo idilba waxba imaynayna waan ka xumaay adeer aad iyo aad samariye iimaan yaa kula jooga oo kale imika maya abtigeed bay la jooga bal iigu dhib abtigeed asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaa ani walaal aadan axmed baa layidhahdaa oo waxaan ku dhigida seediyaanahay abdibaan gabadhan oo ahaa gabadha walaashila ayaa dhashay ilmaaya sidee wax u dhaceen walaalo walaal horta wallaahi siday u dhaceen aniga qayra aad ii gelisay inkastoon aanu jijigaan ka imiday maanta oo waxaan ku yidhi waan maqnaa xitaa meel ka fogo ilaa mula layidhaha ka imide ma garanaysaa waan gaasay anuna xaafadda horta imanin baan horta soo maray mashay tayare ay ku dhacday waan garsay tayari meel waxa ku dhacday qaraadh oo gebi qaraadh saa uga laalaado gebi laalaaday ku dhex dhacday ma garanaysaa waan garsay markaan masha aan sidaa u eegay horta ilmuhu waxaan ku yidhi waxay ku jirtay habeenkii horta 6aad baa laga soo saaray ma garanaysaa waan garsay horta dawlad waxaan ka ahayn horta ilmaha badbaadin lahay markaan macnaha masha saa u eegay horta ma lahayn oo kolku hadduu tobanna uu masha isku yimaado horta wax dongore iyo wax iyo qacan bilaadan horta waxaan ku yidhi wax lagaga soo bixin lahaa horta ma lahayn waan garsay asaarida maaragtay aqli badan taas oo maaragtay meel banaanka inta la qodo oon ilmaha seena carraya waxba ugu daadanin meel cidhifa inta la qodo si loo qodaya aayarun macnaha laga soo bixiyo hoos ayuu ilmuhu ku badbaadi lahaa waan gartay tiina horta dawladdiina waktigii horta loo baahnaa horta umayna iman horta way u timid horta uma iman iyo imaashayada way u timid laakiin waktigii loo baahnaa imise cisho kadib baa u timid dawladdu 3 cisho kadib ayay yimaadeen maalintii afraad horta dee walaalkeew horta markii waxaan kuli tayr ku dhacday rafaad dee nin walba umasha yimiday horta nin walba adduunka maanta mobilaa la haystaa waaweyn oo adduunka la geliyo wixii wadan walba ka dhaca horta degdeg baa loo helaa ma garanaysaa waan gartay markii macnaha Facebook iyo sawir iyo wax la qaatay hawada wax la dhigay nimankan inay dawladda lafteedu marka nin waliba laynka u la socdaa inta macnaha hawada laga eegtay macnaha oo de qofka
ilmaha dadka dhalayda iyo dadka ana dhalin ba ayaa waxaan ku yiri ayay dhibaato ku keentay ma garanaysaa aad iyo aad marka si aad idinku eegaal adiga lafteeda aad u aragto kale ayay kuwan macnaha maamulintii iyo dawladda markii joogta lafteedu kolkay waxaa keenbay dib macnaha ayay dabaqabateeyeen waan gartay oo joogda macnaha waxaad garanaysaa habka macnaha ma garanaysaa laakiin markii arrinku cusbaa cidima laakiin arrinku markuu arrinku cusbaa ha wax balan u yimiday ma jirto waad u sheegteen kuwa gobol degmada Tulli iyo gobolkaba ma u sheegteen markaa maalinkii afraad inta loo yimiday kolley masha maamul baa jooga gobol badaayo maamul baa jooga waa inay maqleenna way suurta gashaa oo cagabta lafteeda wayba u tegeen maroo waa dhawida dhulka iyo waxba adu sa ilaahay adu tayar waa la badbaadin lahaa haddii ay horta dawlad waxaan ka ahayna wax ka qaban lahayd yarta badbaadin lahayd walaal ma jirin adigu markaad u timid may noolayd gabadhu may walaal ma noolayn markaan u imitay waan gartay marka saas ay maxaad imika dadka Soomaaliyeed ee idin daawanaya oo fara badan maxaad u sheegaysaa oo aad leedihiin sidaa iyo sidaas iyo sidaas iyo saasay wax u dhaceen ma dawladdu waxaad leedihiin namayna hakran oo way noo soo gurmatay mise waxaad leedihiin gabadha way badbaadin lahaayeen dawladdu iyo wayna hakradeen oo 3 cisho kadib bay yimaadeen horta walaalow waxaan ku yidhi adiga hadday dhibaata kugu dhacdo ha ka markaaba dayda kugu yimaadiye ka macnaha ku xasuusiye un aday dhibaata kugu dhacdo wixii lagaba soo bogsanayaba horta tayar waxayba kol dhacdayba ina macnaha halkaaba lagu wadaayo macnaha ayayba gaadhay laiska badaayaba kowde halo ha waan ku maqlayaa walaal ayayba gaadhay ma garanaysaa ha oo qacan markii waxba lagaga qaban waayey salkii waxaan ku uri wixii meesha joogay qacan waxba kaga qaban waayeen mar waxaba laaba ma u faataxayna oo gabadha halkaanba ma ku daynaa maadaama ay waxaan ku uri ay aan la soo bixin karaynin waan gartay mashana walaal markaad jeerkeeda aad haysid jabi laalaaday gabadhu qaraad laalaada oo dhinaca hoose haddii laga mari lahaana jedigiibaa jabi laalaada weeyaan ma garanaysaa walaal waan fahmay waxaasoo dhan laakiin maanta video baa jiray lasoo duubay oo uu leeyahay cabdijeex oo ah aabbaha gabadha dhalay dawladdu markiiba way noo soo gurmatay oo si wanaagsan ba wax noola qabatay imikana sidanaad ii sheegaysaan marka siday noqonaysaa walaal labada xaajo maxaa yacni bal siyar qabatay horta walaal qofka bini-aadamkii jeeri walaal horta waxaa idhi dee horta say tahay waad og tahay ma garanaysaa waan gartay walaal 3 horta 6 caalamaad maalintii 6aad baa laga soo saaray horta 6 caalamaad horta ilmaha meydkeeda laga soo saaray horta dhibaato iyo wiilka murid oo qofka kolkay mar horta jeeri ku dhacdana walaalkay iska dhib badan yahay qofka biladanka hadday saacado u gasho dhibaato male laakiin ilmahaagii oo meel ku jira god ku jira oo godku uu ku jiro macnaha tolkii uu u maaran laayahay oo si walba ku qacmaa ku xaadho si walba inta laleeyahay ilmihii la gaari kari laayahay horta yaxyahay waxaan ku yidhi argagax iyo dhibaato weyn ba horta ku dhacday ma garanaysaa aada iyo aad markaa 3 maalmood kadib maskaxdaada hadday dawladi macnaha ay jirto horta ilmaha yar hadday degdeg loo helo in ilmaha yar horta la badbaadin lahaa ba ina tahay de laakiin 3 daraarood markay dawlad aynan u imanin ha horta shicib walaalo inaynu waxba ka qabanin waad og tahay ma garanaysaa maya hadalkii maantan anigu sheegaya ee ahaa dawladda hadda maantana walaal adigu dee isagu siduu macnaha igu dhacday unbu ugu sheegay markii loo yimiday si wanaagsan bay dawladdu noogu soo gurmatay kuwa gobolka noo soo gurmaday kuwii degmaduna way noo yimaadeen ba hadalka ku jiray imikana horta imaasaade eeg imaasaa walaal way yimaadeenoo maalintii afraad bay yimaadeen imaasaa horta walaal horta way yimaadeenoo mayna imanin lama le ma garanaysaa laakiin way badbaadin karayeen baad imika ii sheegtay ee 4 cisho kadib dee soor baa layidhi walaal nin u baahan baa horta la siiyaa ma garanaysaa goor aan loo baahnayn bay yimaadeen bay ka dhigan tahay marka ha walaal wakti aanan ahayn eeg soo saarideedu dhigyarideedii kolkay macnaha yimaadeen hadda eeg hadda
waan gartay walaal waan ku fahmay si fiican baan kuu fahmay samariye soo eeg allah inaga siiyo soo saarideedii dhibyaradeedii hadday macnaha markii ugu horreysay saa ay u iman lahaayeen ha waa laga soo saari lahaa walaal adiga magacaaga bal ii sheeg aniga aadan axmed caalin baa yidhaha oo gabadha dhashay baan ayaa waxaan ku yidhi ayaa walaashay abtibaan gabadha waa walaal igu dhib aabaheedna aya halo adeer adiga magacaa mar labaad igu celi magacaaga mar labaad igu celi cabdi ayaa lagu dhaha cabdi jaax baa la yidhaha waan u sheegaan ku yidhi kuwaano waxa weeye 3 maalmood kadib daraadtii afraad kolkaasi gooraya samir la yidhideeda ahayd magaran cabdi jaaxo markaa adigu gabadha aabaheed soo ma tiid de gabadha aabaheed baan hayaa waayo adeero ilaahay samiriye imana kaa siiyo ummadda soomaaliyeedna waa kula qabtaa geerida waa kula dareemaysaa dhammaanta iyagoona kula tiiraanyeysanahay